todobadii kulan oo maanta dhacay oo xiiso weyn lahay waxaan la soconaa Liverpool in laga adkaaday Manchester City-na laga badiyay. Liverpool guuldarrada ku dhacday waa markii lixaad ayaa guuldarro oo ku dhacday. Sida aan la soconaa Premier League koox ku guuleysatay horyaalka oo 6 ay ku dhacday waxaa kamid ahay kooxihii Leicester iyo Blackburn ayaa kamid ahay. Chelsea-na 7 mar ayaa laga adkaaday horyaalka markay ku guuleysatay sanadkii ku xigay. Manchester United-na 3 mar kaliya ayaa laga adkaaday markii laga soo qaado 12 ciyaar kaliya oo la ciyaaray. marka Liverpool ma qabo inay sanadkan horyaal ay ku guuleysanayso. Nottingham Forest waa la soconaa tababaraha Sean Dyche inuu tababaro yahay, waa tababaro kubadda dheer dheelo inkastoo 3 gool laga dhaliyaba xariiqinta 18 gudahooda laga wada dhaliyay. taasna ay ku tusayso difaacumadooda inay aad iyo aad ay ku tusayso. Liverpoolna ilaa iyo 74% kubadda ayaga ayaa haystay. runtii goolal badanna way abuureen, laakiin waxaa u malaysaa gool dhalintooda aad iyo aad inay u liidatay, difaacoodana saas inuu aad iyo aad u liitay. inkastoo maanta uu ka maqnaay ciyaaryahankoodii ugu qaalisanaa Florian Wirtz, inkastoo uu ka maqnaay iyo ciyaaryahanka Bradley ee numberka 2 uga dheelo. taasna waxay qasabtay in ciyaaryahankii Szoboszlai inuu numberka 2 uu ka ciyaaro. si kastaba hatee waxaa kaloo qabaa tababaraha qaladka weyn uu sameeyey inay ahayd in ciyaaryahankii Alexander Isak inuu ku bilaabo. ani waxaan qabay Ekitike inuu ciyaarsiyo, inkastoo gadaal uu ka keenay haddana waxaan qabay in uu ku bilaabo uu kooga hore oo ciyaarsiyo. taasna maysan dhicin. goolhayihiina Alisson Becker dib ayuu ugu soo noqday, laakiin 3 goolba wax uu ka qaban karay ma jirin. runtii xariiqin 18 gudahooda ayaa laga wada dhaliyay goolashaas. kooxdaanna waxaan la soconaa Sean Dyche inuu yahay tababarayaasha difaaca dheelo kubadaha dheerna xariiqinta 18 uu ku rido. Sean Dyche-na sida loogu dhiibay markii ugu horeysay waa xoogaa kooxda waxaa malaysaa inay isdeganeen, laakiin hadda in ay isla soo qabsanayaan ayaa u malaysaa Sean Dyche iyo kooxda Nottingham Forest. su-aasha waxay ka taagan tahay tababaraha waxaa u malaysaa ciyaartooyda cusub oo keenay iyo kuwii hore u joogay inay isla qabsashadooda weli aysan fiicnayn, aysan isla qabsan. si kastaba hatee ana waxaan isleeyahay culayska marka hore wuxuu saarnay ciyaartooyda lacagta badan laga soo bixiyo Alexander Isak, Florian Wirtz, Kerkis. marba ciyaartooy ayaa la dhahayay ciyaartiisa ma fiicno markii laga reebo Ekitike, inta kale aad iyo aad ayaa loo dhaliilay. si kastaba hatee hadda laakiin waxaa u malaysaa inay sheekada u wareegi doonto dhankaas iyo tababaraha slot inay u wareegi doonto, sababtoo shaxda uu ku yimaado waxaa u malaysaa shax fiican inaysan ahayn iyo qaabka oo ciyaartooyda uu ku ciyaarsiiyo inaysan fiicneen iyo qaabka ay kubadda difaacooda ay iskaga ilaaliyaan. goolka koowaad Benoni kubadda wuxuu ahaa koone lagu soo gamay, kadibna xariiqin 18 kusoo dhacay Muralana ciyaaryahanka Brazilianka difaaca oo helay kubad hoose oo xoogan oo ka dhaliyay. si kastaba hatee Liverpool waxaan isleeyahay difaacooda aad iyo aad u liito, gool dhalintoodana aad uma fara badno, laakiin xagga horyaalka waxaan qabaa waa ka hartay. waxaana fili doonaa Liverpool inay u jeesan doonto dhankaas iyo sida 4 koox ay uga mid naqaleed ayaan isleeyahay inay u jeesan doonto ayaan fili doonaa. marka Liverpool talaabada ku xigta waxay noqon doontaa oo macnaha baraha saxaafadda ka hadli doona tababaraha ayaa dhibaatada ka taagan ayaa bilaabo doontaa. waxaana fili doonaa ciyaarta ugu xigto inay Champions League ay la ciyaari doonaan kooxda PSV Eindhoven, inay la dheeli doonaan Champions League-na 5 kulan oo dheel 4 oo badiyay. Galatasaray kaliya ayaa ka badisay. haddii aan ka gudbo oo dhanka City aado, ciyaar aad u xiiso badan ayay ahayd oo waxaan la soconaa Eddie inuusan Pep Guardiola uusan ka badin 2 mar kaliya inuu barbardhac la galay. hase yeeshee qaybtii hore labada kooxba fursado waxay heleen ay labadaba ay ku hormari kareen, khaasatan Harvey Barnes kubad xariiqin 18 loo soo dhigay oo caga uu dhali karay ayuu banaanka iska marsiiyay. laakiin taas ani waxaan qabaa kubadda xoogliga ay ku socotay iyo Harvey Barnes oo lugta bidixda ku dhiftay, taasna ma ahayn lugtiisii xooganeed. taas ayaa waxay keentay gool aan la cunin inuu cuno ayay keentay Harvey Barnes. markii ciyaarta la bilaabana kubadda oo qalday Donnarumma ayuu helay, ay ahayd si fudud inuu uga dhaliyo, laakiin muuse sameyn ciyaaryahankaas culays ayaaba saarnayba oo 2 fursad ayuu berdiriyay. goolhayaha oo Jarmalkana
nick Veldamena kubad aad u fiican oo madaxa ayuu helay oo laga qabtay iyo kubad kale oo xarqan 18 oo la galay oo laga qabtay hase yeeshee City laftigeeda fursado fiican ay heshay oo Haaland kubad xarqan 18 loo soo dhigay ayuu helay oo goolhayaha oo ku dhiftay Phil Foden iyo Shirkina kubad aad u fiican ay ka wada shaqeeyaan ayaa Phil Foden kubad caga oo ku gama birta dhinaceeda ay ka martay fursad waxay haysteen ay ku hormari kareen City inta badan kubadaha ayada ayaa haysatay 17 mar ay goolka Newcastle toogtay meesha 7 mar kaliya laga toogtay ciyaar ahaanna way fiicnaan laakiin Newcastle difaacooda aad u fiicnaa qaasatan Malik ta oo ay Faransa ka keeneen waxaan qabaa inuu Haaland oo ka dhigay inuu si fiican u xakameeyay oo aad u hay inkastoo Harvey Barnes man of the match la siiyay haddana ani waxaan fili lahay ciyaaryahankaas inuu u qalmay Malik ta in la siiyo ciyaaryahanka ugu fiican in laga dhigo ayaan qabay sababtoo waa ciyaaryahankii Haaland uu ka dhaqaaqiisa muusan fiicnayn garbahoodana Newcastle runtii waxaan qabaa nambarka 2 iyo nambarka 3 aad inuu fiicnaayeen Levament iyo Hall ciyaaryahankaas labadaba inay aad u fiicnaa iska xakameynayeen Duko iyo Shirki iyo dhinacaha ka imaanay marka Newcastle way isdifaacaysa weerarna way qaadaysay labada gool guushana waxa uu dhaliyay Harvey Barnes ayaa u dhalay mid xarqan 18 banaankeeda ayuu ka toogtay midna kubad koona lagu soo celiyay ayay ahayd taasoo la isku qabsadaa sayashee farka oo cadeeyay in aysan offside oosan ahayn Gimenez si kastaba haatee City 4 mar ayaa laga badiyay City laftigooda ma u maleynaa horyaalka inay u dagaalami doonto Chelsea oo guul soo gaartay ayaa kaalinta 23 dhibic ayay timid ayaga iyo Arsenal hal dhibic ayaa u dhaxayso oo waxaan la soconaa inuu Barcelona oo la dheeli doono usbuuca soo socotana Arsenal oo la dheeli doono saas daraadeed ciyaartoy ayuuba nasiibo aan la soconno tababaraha Enzo Maresco oo Fofana uu iska fadhiisay oo ka soo tagay wuxuu kaloo fadhiisay Concedo kaydka ayuu geliyay ciyaaryahankan kaloo laftigiisa Francisco Gusto Malo waa la fadhiisay Garnacho waa la fadhiisay waxaasoo dhan wuxuu u nasinayay ciyaarta Barcelona iyo Arsenal marka Premier League waxaan qabaa in Chelsea hadda ay tahay kooxda la leeyahay Arsenal way raacdeynaysaa dhalinyaro fiican ayay haysataa moral ahaanna waxaan qabaa aad inay u fiicantaa oo Burnley intii u tagtay ay u awood sheegatay ayuu intaas ciyaartoy kaydka ay ku hayeen si kastaba haatee Chelsea dhibaatada haysta waxay tahay si joogta uma badayso oo si joogta hadday u badi lahayd maanta meeshay joogto meel ka fiican ayay tegi lahayd ciyaartoy fiican ayayna haysataa su-aasha marka waxay ka taagan tahay Tottenham ma bedeli doontaa qaabka wejiga Premier League ma bedeli doontaa oo biri Tottenham ma badi doontaa haddii biri Tottenham ay badiso Arsenal 26 ay joogay Chelsea 23 gurigooda ayaa loogu imaan doonaa haddii ay ka adkaadaan 3 gool iyo wixii ka badan ama 3 gool kaalinta koowaad Chelsea ayaa geli doonto meeshaas hogaanka Arsenal waa lagala wareegi doonaa marka Premier League biri wuxuu u yaalaa kooxda Tottenham ayuu u yaalaa wejiga Premier League inay bedelaan haddii Arsenal ay badiso waxaan u malay doonaa hadalhaynta inay tahay Arsenal inay la carartay aan la soo gaari karin sababtoo City Liverpool Chelsea waxay u egyihiin kooxa laga adkaa karo ayay u egyihiin oona weli dhibca dhuminaya ayay u egyihiin laakiin Arsenal hal mar kaliya ayaa laga badiyay 5 gool kaliya ayaa laga dhali awoodoodana waa si marka dambayso way si xoogaysanaysaa marka inkastay November tahay horyaalka way la carari doonaan laakiin Tottenham sida ay ku timaado ayay ku xirnaa doontaa oo waxaan la soconaa Thomas Frank inuu yahay tababare difaac ku dhisan weer celinna wax ku qaada sida Nottingham Forest ay ku samaysay Liverpool Tottenham ma sameey doontaa lama ogo biri ayaan ka warsugi doonaa wejiga ciyaarta inay wax ka bedelaan Tottenham laakiin ma umaleynay Tottenham inay wax ka bedeli karto sababtoo Arsenal waxay u jeedaa Liverpool iyo City in laga reebay hogaankana inay sii dheeraysato ayay u badnaa doontaa oo ayagii Chelsea 6 dhibic inay u dhaxay doonto laakiin ciyaartu tagi doonaan hadday 3 ka reebaan waxaan qabaa haddana horyaalkii inuu dib u soo noqon doono ayaan isleeyahay laakiin waxaa la dhahaa Westernka waxay dhahaan game on ayay dhahaan haddii ay badiso Tottenham ee Arsenal ka badiso waxaan isleeyahay
Premier League dib ayuu u soo noqday oo xaalad cakirin ayuu geli doonaa. Chelsea waxay istusi doontaa hoggaanka inay qabsan karto, horyaalkana ay qaadi karto. laakiin sidee adig kula tahay birito Tottenham wacdala ma dhigi kartaa oo mana tusi doontaa inay koobka ay qaadi karto, ay ka badi karto kooxdan Arsenal oo horyaalka weji cusub ma u yeeli doontaa, mase Arsenal ayaa la carari doonta. birito ayaan ogaa doonaa. laakiin adiga sidee kuula muuqataa? Tottenham biri wacdala ma dhigi doontaa oo ma celi doontaa Arsenal, mase Arsenal ayaa carari doonta? sidee adig kuula muuqataa? bal fikradaada nala wadaag.